muuqaalka lagu soo dhawaa oo ku saabsan sida loo sameyn karo marka table adigoo joogtid html. Marka waxaynu socotay koorso ahayd barashada html, css, bootstrap, javascript iyo jQuery. marka maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay sida loo sameyn karo table. marka table markii laga yimaado waa sidii listi ayay u egyihiin ayaga qaab loo sameeyaa jira marka table oo markii la joogo html ahaado in la isticmaalo loogu badan yahay dadka dhamaantood. marka waan arki doonaa iyo sida loo sameyn karo. marka hore aan u galno meesha marka waxaan ku samaystay table html file marka waxaan soo koobiyeynaa marka structure-kii oo ahay html table dhexdiisa marka ku paste karana inta marka waxaan ku qoranayaa marka table live marka refresh haddii aan dhahdo soo jeedada way kacsan yahay table-ka ay kacsan. marka table markii la sameynayo horta waxaa la sameeyaa tag table ayaa la furaa. table-ka markii la furo table-ka waxaa ku xiga marka in la furo haddana tag la dhahayo table row-ga marka wuxuu holdhigaranaa ama siin oo ligeliya marka tag la dhahayo table header kaas marka asiga waxay noqonaya marka ciwaanada bold ahaan ayay u qoramanayaan ayaga oo lagu talagalay in lagu holding gareeyo. markaas waxaa sii xig oo la sameynaya haddana table row row-gaas marka waxaa lagelinaya marka label data service meel markii header-ka lasoo sameeyey waxyaalaha ku buuxsan lahaa ayaa la sameynaya. marka waa arkaynaa koodii marka waxaa fureynaa table tag lahayo table oo is xiray markii xirno haddana table-kaas dhexdiisa waxaan ku dhex sameynaynaa table row. markaan sameyno table row-ga isla table row-ga dhexdiisa marka waxaan ku dhex sameyn doonaa marka table header marka aan ku sameyno waxaan ka dhigaynaa ilaano first name camal marka hadana kana soo koobiyeysana marka haddana waxaan dhahaa marka last name haddii aan dhahdo mid kale aan ku darayaa aan dhigayaa roomka. marka saa ujeeda marka hadda meeshaan kusoo sameysmay first name haddana last name haddana roomkii marka kulli waxay noqdeen marka bold ayay noqdeen. kaas marka waxaa loo yaqaanaa table header ayaa loo yaqaanaa. table header-ka marka waxaan ku dhex sameynay waxaan sameynay table oo table-ga kana ku xirnay table tag marka waxaan dhex sameynay table row marka waxaa la marka saf oo saasana la wada marka adsaan waa saf. marka table row-ga safkaas marka la sameeyay waxaa safka soo dhexgelinay marka header-ka soo dhexgelinay marka header-ka saas waa marka kan meesha ku soo xirnay anaka marka waxaan haddana sameynaynaa marka table row kala sameynaa. marka table row kala marka hoostaana soo dhigmanaa table row kala sameynay table row kala marka dhexdiisa waxaan ku dhex sameyn doonaa table data oo la soo gaabsho iyadana td. marka table data marka waxaan dhex gelin doonaa magaca koowaad cali soo jeedna marka caliga wuxuu ku soo qormanayaa first name hoosteeda. haddii marka aan copy gareeyo haddana aan dhaho enter aan control v dhaho cali xasan camal aan dhaho marka wuxuu kusoo muuqanaya isagana last name dhexdiisa. marka haddana mid kalaas sameeyey oo roomka ugu galayo imtixaanka camal room 5 iska leh. marka saa ujeedo table row ayaa la sameeyey. table row markii la sameeyey waxaa lagu dhex qoray marka table data oo loo soo gaabshiidana td marka waxay ku aadaysaa marka wixii lagu qoro first name koowaad labaad last name noqonaa saddexaad room buu noqonaa. marka saas tahay marka in loo sameyn karo marka data oo table marka waan buusinayna hadda
okay marka saa ujeedo labadan ayaan kusoo daray haddana marka waxay tahay marka sida loo sameeyo marka tableka haddii aan hadda ku sharxo saa arkeysa madan waan soo sameyneyni waa arkeyseen oo aad ay u fududaa marka in la sameyn karo table marka koodi marka table markii la sameynayo waxaa loo baahan yahay table tag lahayo tableka marka aan aweynayo tableka marka meeshaan lagu soo xiray saa ujeedo marka wax kasta marka table la sameynayo tagan tableka dhexdiisa ayaa lagu dhex qoraya marka markii waxaa loo baahan yahay marka table markii la sameynayo in la sameysto headerkan oo ah first name wax marka headerkaas inuu bold ku noqdo rabtaa marka headerkaas marka waxaa kaa caawinayo koodi inaad sameystid table row oo loo soo gaabiyo tr table row dhexdiisa marka waxaa ku dhex sameynaysaa marka th oo ah table headerka marka table headerkaas marka wuxuu kaa caawinayaa in uu noqdo rowgaaga ama safkaaga oo wax kusoo qortid boldigaas intay noqdaan marka sarka u koowaad camal marka boldigaas markay noqdaan haddana waxaa sameyneynaa marka in aan data soo gelino macnaha data markasi loo soo geliyo markaasigana waxaa loo baahan yahay in la sameeyo tag lahayo table data marka table datahaas marka wuxuu waxaa ka caawinaya inaad sameysid horta kow table row markasta horta wax saf aad sameyneysid markii aad joogtid table waxaa laga marmaraya inaad soo gelisid markasta tr oo loo soo gaabshay table row marka safka oo tableka markasta waa loo baahan yahay in lasoo gelsho marka tr kaas marka waxay ku sameyneysaa saa ujeeda hadda in aad soo gelisid go td oo ah table data marka waa soo xiraysa marka table datahaas marka kan koowaad kan labaad kan saddexaad wuxuu ku aadaa marka midka koowaad wuxuu ku aadaa first name midka labaad wuxuu ku aadaa last name midka saddexaad wuxuu ku aadaa marka room ama roomka aad u samaysta camal tablekaas u samaysan yahay ayuu ku kala aadaa marka saddex xaba inta ahaayeen intana saddex baa ka dhigaysa marka mid kale kusoo daray madan qof kale mid kale haddaan sameysa ujeeda haddana mid kale kusoo daray marka aad u fududaa marka sida waxaas loo sameyn kara marka waxaanu si fiican uu soo sharaxnay oo ahay dhaqdhaqaaqa aan kasoo sameynaya jiray marka muuqaalkii ugu horeeyay ama muuqaalkii labaad ee chapterkan markii aan bilaabeynay marka waad ku mahadsantahay daawashadaada u diyaar garo marka cashirka xiga السلام الله عليكم marka lagu soo dhawaado muuqaal cusub oo ku saabsan web development 101 marka maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay sida loo sameeyo marka form adigoo isticmaalaya marka HTML marka form marka sameynayno waxa loo baahan yahay marka taagyo in la fahmo u baahan marka ayaa jiro taagyadaas marka waan arki doonaa waxaan sameyn doonaa horta marka form oo registration ah qofka magaciisa soo geliya iyo wuxuu soo geliya qof magaciisa soo geliya wuxuu soo geliya wadanka uu joogo haddana passwordka iyo email marka soo geliyo wuxuu dooraha marka adeeg uu rabo marka macnaha in oo wax loo sameeyo muu rabaa mise in oo wax iibsado rabo marka wax sax mana sameyn doonaa marka kabacdina badan oo sinaba yoo sameynaa form saas ayaa loo sameeyey marka hore aan u gudagalna marka meeshan waxaan ku haystaa formkii oo aan soo samaystay HTML ah waa file macnaha file oo ah HTML soo sameeyey marka wixii dhan waxay isku dhex jiraan marka HTML basics ayaan ku dhex shubay marka ay kadan projectation dhan waxaad ka helaysaa marka website-ka projectiyada ama muuqaalka meesha ka daawan jirta description-kiisa meelaha ka helaysaa okay marka form marka la sameynayo kow waxaa loo baahan yahay saa ogtihiin tag la dhahayo form in la sameeyo tagga form marka la sameeyo tagga dhexdiisa marka waxaa lagu dhex qoraa haddana tag kale oo la dhahayo field set meesha marka oo formka ku dhex sameynaysid waaye field setkan marka field setka dhexdiisa marka haddana waxaad ku dhex sameynaynaa marka legend tag la dhahayo legendiga marka waxaa loo talagalay in lagu qoro magac camal hadda camal registration aan yiraahdo registration waayay marka field marka waan iska weyneysana macnaha waxaan ka dhigaa heading 1 saa ogtii marka waxaan hore ayaan kusoo aragteen markii soo qaadanaynay koorsadan dhammaantood marka soo aragteen marka okay marka registration haddii uu yahay formka marka legend marka ay sameeyaan field marka ay sameeyaan legend dhex sameynaysa marka waxaa loo baahan yahay marka in la sameeyo koow qofka magaciisa inuu soo geliyo marka magaciisa marka soo gelinaya qofka koow waxaa loo baahan yahay label in la sameeyo labelka la sameeyay
marka waa soo xirnay labelka marka waxaan ka dhigaynaa camal name markaan ka dhigno namekaas marka waxaa loo baahan yahay meel uu place oo qofka wax kusoo qoray camal marka waxaa loo baahan yahay in la sameeyo input markii la sameeyo oo lasoo xiro marka inputaasi waa self close way oo u baahan in lasoo xiro markaasi waa sidii image camal marka inputka dhexdiisa marka waxaa loo baahan yahay in wax lasoo geliyo oo ah typeka nooca oo loo baahan yahay inuu noqdo typeka wuxuuna yahay marka name ama text leh typeka marka waa text oo soo galay marka typeka marka text waay marka waxaa loo baahan yahay qofka meesha marka oo arko boxkan oo marka wax la dhex qorayo oo arko tusaale soo jeeda marka waxa ku dhex qoraynaa inuu fahmayo loo baahan marka markaas oo loo sheegayo marka inuu qofkaas wax soo geliyo marka waxaan dhex gelin maxaa sameeynaa marka placeholder aan sameeynaa marka placeholder markaan sameyno oo ka caawinayo qofka in meeshaan boxka oo wax lasoo gelinayo inuu fahmayo loo baahan yahay marka waxaan dhihaynaa marka enter your name ayuu dhahaa marka geli oo magacaaga ayuu kala wadaa marka qofku ogyahay marka meeshaan name ay tahay meeshaan oo ku dhufto wuxuu ku qoraa marka magaciisa ku qoraa marka placeholder marka saas ay faa'iido leedahay marka labelkaas marka aan sameynay wuxuu yahay marka magaca haddana marka qofka waxaan u diraynaa marka mar kale in uu soo gelsho magaciisa labaad ama uma baahnaba magaca labaad oo nameka haddii aan fahmnay inta maxaan ka dhiganaa bas enter your full name aan ka dhiganaa bas okay enter your full name meeshaas geliyaa marka qofka enter your full name marka qofka soo geliyaa haddana label kala sameynayna marka labelka waxaan ka dhigaynaa marka emailka markaan ka dhigno marka waxaa loo baahan yahay asigana inputka hadda camal inaan sameyno inputka markaan sameyno oo aan xirno typeka marka waxaan dhahaynaa email haddana placeholderka waxaan dhahaynaa inta marka your email qof marka waa imaana oo fahamsan yahay marka emailkiisa soo geliya marka haddii aynu refresh dhahno oo saa ujeeda marka waa soo qabtay laakiin uma rabno marka meeshaan waxaa inoogu qoran halka xabitaan ku dhaafnaa rabnaa marka name bas emailka ayuu meeshaan noo soo qabanaya marka waxaa la isticmaalaa markii wax la dhahayo break oo line break ah in oo la kala jaro marka lineka wax markii lasoo qoray camal marka waxaa sameynaya br oo loo soo gaasho break oo loo yaqaano line break marka haddii aan hadda aan saas aan sameyna hal xabo saas ayuu noqday oo break aan dhahan hadda break kale ku darayna marka si oo laba line ugu soo sigta marka soo jeeda marka hadda email aan meesha ku qornay nameka inta kor oo aaday emailka noo soo imaan marka breakaas marka faa'iidadaas ayuu leeyahay marka taagyo badan aa jira marka oo u baahan yahay in la wada isticmaalo marka haddana inta marka waxaan ka sameynaynaa haddana break kale aan ka sameynaynaa laba break soo marka inta markaan dhahno breakaas marka wuxuu ka caawinaa in laba line oo kasoo sigta marka wixii ka horeeyay marka okay marka qofka magaca soo geliyay emailka soo geliyay haddana marka wuxuu soo gelinayaa mar kale password labana marka waxaan sameynaynaa oo passwordka noo holdi karaynaa marka camal passwordka okay marka password markii soo sameyno haddana input ayaa loo baahan yahay markasta oo form la sameynaysa input waa loo baahan yahay marka input typeka marka wuxuu noqonayaa passwordka typeka noqdo passwordka marka waxaan ka dhigaynaa asigana password okay saa ujeeda marka meeshaan haddii aan ku qoro wuxuu rabaa in uu noqdaan textiga boontiyo oo ah in la arki karin sababtoo ah typeka meesha inoogu qoran wuxuu uu yahay password marka okay marka hadda saas markii aan saas u sameynay qofka marka waxaa loo baahan yahay wadanku joogo inuu soo gelsho ama waxaan ka dhigaynaa inuu soo doortaa mise inuu soo gelsho marka waxaa inoo fiican inaan ka dhigno in uu soo doorto marka okay marka waxaan sameynaynaa haddana break kale haddana break kale qofka inuu soo doorto wadanka meesha uu joogo marka okay marka tusaale hadda marka waxaan sameynay label marka waxaan ka dhigaynaa marka country wadanka qofka jooga ka dhigaynaa marka country markaan ka dhigno waxaan sameynaynaa marka meesha aan ka sameynayna input oo ahay
meeshaan waxaan inuu soo gashay qofka. Hadda marka waxaan ka sameyn doonaa tag la dhahayo select. tag select marka aan soo xirno tag select dhexdeeda marka waxaa loo baahan yahay qofka marka uu sas u furo in uu wax u soo qabto wadamo oo tixa marka marka waxaan dhex sameynaynaa asiga option ayaan dhex sameynaynaa marka option aan sameynaynaa optionka marka koowaad marka waxaa inoogu qoran Soomaaliya. Okay, marka optionka haddaan soo koobiyeyna optiono badan marka ka dhigayna macna sababtoo ah waxaan u rabnaa wadamo badan aan rabnaa marka Soomaaliya, Kenya, Uganda wax la iska geli oo waa tusaale ahaan adiga uma baahna marka in wax saas la sameeyo marka ya form oo wax ka jiran ayay tahay marka Saudi ay iska geli okay marka Saudi da refresh di aan dhaho qofku uu imaanaya wadanku joogo ayuu meeshan ka dooranaya marka Soomaaliya, Kenya, Uganda saas marka wax u sameyn kartaa marka select wax marka form oo select marka qofku uu dooran karo marka saas aad sameysid waxa u baahanahay hadana marka kale inaan doorano qofka muxuu oo rabaa marka in loo sameeyo wax mis inuu wax iibsado marka rabaa marka tusaalahaan marka waxa waaye form oo shirkad leedahay marka wax alaabay gadgada ayaa laga iibisa marka marka waxaan ka dhigaynaa marka form oo waxaan sameynaynaa hadana oo qofka inuu doorto marka waxaan ma in loo sameeyo rabaa mise wuxuu rabaa in uu wax gato marka labada hadana aan sameyn doona marka break in la iloobo maahan break markaan sameyno labelka hadana aan sameyn doona marka labelka marka waxaana ka dhigaynaa marka service macna adeeg adoonis camal ku qor adeegay rabtaa marka adeega rabtid inta marka waxaan ka dhigaynaa break si oo qofka meeshan u doorto marka macna break marka aan dhahno waxaan ka dhigaynaa marka checkbox macna waxa la dhahayaa box inuu qofka doorto marka input la sameynaa hadana inputka markii la sameeyo inputka dhexdiisa marka waxa lagu type-ka la qaadanayo wuxuu noqon doonaa marka type-ka aan qaadan doono wuxuu noqonayaa checkbox-ka marka ilaashisa marka waxaan ku qoraynaa repair oo ah dib u sameyn markaan ka dhigno break hadaan sameynaynaa oo line cusub soo bilaabmo hadana input kalaan sameyn doonaa input markaan saas sameyno aan xirno type-ka aan qaadanayna hadana waa isla checkbox markii waan xireynaa meeshana marka waxaan dhigaynaa by saa ujeeda marka hadda qofkii wuxuu service rabtaa service-ka midka hore waa dooraha marka okay marka service-ka saas u dooran karaa marka waxaan rabnaa in aynu sameyno hadana qofka inuu sign up dhaho ama login soo dhaho marka saas marka ay tahay button sida sameynay aad baad u garanaysiin ama banana waxaan ka dhigaynaa marka button isticmaal doonaa buttonka marka waxaan ka dhigaynaa sign up okay break meeshaan ku dhex samey marka break si ay u noqdo line cusub hadana break kale si line kale u sii darsan marka sign up marka waaweynay sign up sign up askare asaan isku mid waaye okay marka inta ujeeda marka hadda waxaan sameynay form marka wuxuu ka caawinayaa qofka in uu magaciisa koo soo gelsho hada camal tusaale ahaan camal caaladiyaan soo gelsho email aan dhaho hebel @gmail ama @hotmail ama waxle.com password marka uu isqarina marka si oo loo ilaaliyo marka security-ga wadanku joogo soo dooraha camal hadda Soomaaliya soo dooranaya marka service-ka sirta service-kana rabaa oo dhaho service-ka
labadooda door wuu dooran karaa marka xabadna wuu dooran karaa marka qofkaasiga xur ah in wax la sameeyo aan waxna iibsan doonaa marka sina way soo marka marka formkan wuxuu dhahay marka soo jeedo waa uu soo diidayaa adiga marka inaan u baahno u baahno waxaas marka rag waan ku sii dheeraan doonaa marka muhiimad marka waxay ahayd in aad form samayn kartid marka inaad baratid ayaa u baahan yahay marka haddii marka aad isku daydid inaad si fiican guda gashid marka taagsiyadan lebis ayaa loo baahan yahay in loo xifdiyo marka okay marka hadda si toos u faham marka waxaan dhahnay markii la sameynayo form koodii form tag marka waxaa loo baahan yahay form taaga formka marka halkaan ka furnaysa ujeedo taaga formkii halkaanna waan ka soo xirnay marka taagaas marka haalaha ku dhex jiro ayaa loo baahan yahay marka in wax lagu dhex sameeyo markii form sms filter sameynaysaa filterkana marka waa kusoo xiraysaa meesha macnaha uu formka uu qaadanayo ayaa laga wadaa marka marka kan waxaa waaye ciwaankii ahaa registrationka ka sameynay legendigaas naga saaciidaya marka labadaadana sameynaysa ujeeda marka labelka wuxuu holigarana markasta in uu qaato magaca marka oo meesha inputa sameynay inputka marka loo baahan yahay mar text aan u isticmaalnay mar email aan u isticmaalnay typeka mar password aan u isticmaalnay mar checkbox aan u isticmaalnay marka input marka faa'iido badan oo leeyahay marka loo baahan yahay marka qofka inuu fahmo marka markasta markii loo baahan yahay marka hadana in oo la sameeyo marka listi oo macnaha oo qofka markii oo wax soo dooranaya camal hada tusaale anaga wadan aad ka sameynay marka wax kasta oo la gelin karaa marka label markii la sameeyay control la dhigo select option marka allah select ayay marka selectgaas marka tagaas wuxuu ka caawinaya marka in option aad dhex sameyso marka option badan aad dhex sameeyay Soomaaliya Kenya Ethiopia Saudi Minooga waxaad marka dhex sameyn karaa marka oo naadu wuxuu qofka ka saacidaa marka inuu soo doorto marka kan waa isla sidii oo ah inaan sameynay service-ka doonaysa marka oo checkbox aan sameynay tabkan la ka dhignay marka second option waxa waaye button-ka waa marka button aan sameynay marka muhiimada marka waxay ahayd inaan sameyno formkaas waana ku guuleysanay marka waad ku maasatay marka muuqaalka inaad daawatid haddii wax cilad ku qabsata ama aad u baahan tahay marka wax kale la soo xiriir marka ciwaanada iyo whatsappka gmailkeena ama instagramkeena xitaa iyo facebookkeena marka السلام عليكم marka lagu soo dhawaan muuqaal cusub oo ku saabsan idea glass marka muuqaalkan wuxuu ka mid yahay koorsadii web development 101 oo inoo socotay marka koorsadan waxaad ku baranaysiin html css bootstrap iyo weliba jQuery maanta waxaan gabagabayno marayso ilaa maadis ay tahay inaan soo gabagabayno html in la fahmo understanding html muuqaal ku xiga waxaa la rabaa in assignment la isku diro marka assignment-kaas markii aad soo gabagabaysay shahaadada hadhoodii ay kusoo muuqan doonto marka waan arki doonaa marka assignment-kaas wuxuu isku daahsan yahay waa assignment aad u xiiso badan yaan kaan warnicin maanta marka muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay id and class markii la maxaa la id and class marka horta ko waxaan samaystay file-kii html-ka ahay id and class structure-ka wax dhan waan soo samaysta adigana soo qoro marka meeshaan marka waxaan ku sameyn doonaa paragraph ayaan sameyn doonaa body dhexdiisa marka waxaan ku sameyn doonaa paragraph marka si loo sameeyo waa soo aragteen inta ku baasignayna marka waxaan soo qaatay marka kan laba paragraph camal aan ka dhigaydo adana halkaan kale paragraph kale marka id class marka muhiimada leeyihiin haddii muuqaalkii oo ahay hordhici oo ku saabsanaa marka part 2 weliba aan kusoo qaadanay ay ahayd understanding html marka oo chapterkan labaad markii bilaabeynay aan kusoo qaadanay marka id class marka haddii aan ku faahfaahiyo waxay tahay id sa u yaqaan waa identification macnaha wax qof lagu garto qofkan ayuu qaadanaya marka qofkan marka laga yaabo inuu yeeshto marka isku mid ma noqon kara marka taasaa marka lagu wadaa marka id waxaa la wadaa in paragraphyada ama style marka doonaysa marka inaad style aad sameysad badna marka waxaa adeegsataa css markii wax lagu qurxinayo marka html wax lagu soo qoray waxaa loo baahan yahay marka paragraph ahaado ama tag ahaado ama wax kale ahaado oo in la sameeyo attribute lahaayo id iyo class inuu dhex sameeyo marka attributes-kaas marka waxay ka caawinayaan in qofka tusaale ahaan ama paragraph-kana rabto marka inaad wax ka beedashid paragraph-ka marka kaligiisa rabto marka inaad wax ka beedashid marka id u sameynaya ama class u sameynaya marka id iyo class marka u sameysid
waxay ka caawinayaan marka inaad dhowdi paragraafka sidaa doonta wax ugu bedeli kartid marka paragraaf kale ma qasayo oo wax ugu baahan kana mid gooni oo sameynay glass ama idea oo sameynay saas marka muhiimadda ay leedahay marka sababta dhex sameynaysa marka waxay tahay taaga furita oo ugu horeeya ayaa kortagaysa marka waxaa ku qoraysa id marka qortaba id marka qortaba saa marka ay noqoto quotation marka dhexdooda marka waxaad ku dhex qoraysa marka magaca ama id-ga magaca u baxsanaysid sida doonta ahaado tusaale ahaan hada camal kan hore kan tusaale ahaan camalka hore marka kan hore markaan dhahay hadhoodii markii aan doonayo in paragraafka kaligiis aan wax ka bedelo paragraafkan hore ayuu qoran marka in aan fartaan si u qoran tahay inaan isticmaalo haddii aan ka tago marka slaashta xitaa wax isbedelay marka id marka muhiimada saas ayuu leedahay marka glassna marka haddii aad doonaysid inaad sameysid waxaad dhahaysaa marka keliya glass ayaad qoraysaa asina magaca doonta ayaad u baxsan kartaa marka dambe iskaaga qor marka magacaad waxaad doontaa ku sameysan kartaa sidaa doontaa uu marka aad ka dhigin kartaa marka si oo adiga professional inaad tahay ay ka caawinaysaa marka in waxaaga isku qasnaanin ay yihiin mid dadka wax kala soo soocana marka waxaas ayay muhiimadda loo isticmaalo ay leedahay marka waxaan filayaa in muuqaalkan aad fahamtay haddii aadan fahmin marka waxaan arki doonaa marka wixii aan hadda hordhac keliya ayaan soo qaadanay jabtaradii jabtarkan dhan hordhac ayuu ahay marka jabtaro badan aan u dhima marka oo markaa sameynay website iyo ayaan sameyn doonaa marka waxaase ka caawin doona marka inaan fahmno marka si toos aan fahmno marka in mid kasta aan kor tagno markaan sameynaya ayay macquul tahay inaad si fiican fahantid hadda waa iska hordhac oo practic ahaan ayuu marka ku saabsan yahay marka waa ku mahadsantahay inaad muuqaalkan daawato ha iloowinaan youtube-keena subscribe la saarto wixii macluumaad aa u baahan tahay waxaad nagala soo xiriiri kartaan instagram-keena ama weliba facebook-keena ama whatsapp-keena